kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa garoonka Camp Nou Stadium 3 dhawaad kaga qaadatay kooxda Katafe kadib markii ay kaga adkaatay 5 gool iyo 2 kulan qayb ka ah horyaalka La Liga dalka Spain. qaybta hore ciyaarta ayaa lagu qanaastay 3 gool iyo 1 ay ku hogaaminaysay kooxda martida loo ahay ee Barcelona. waxaan fiiri doonaa goolasha xidiga u kala leeyeen kooxda Barcelona. 2 gool waxaa shabaqa soo taabtay kabtanka kooxda Barcelona Leo Messi, sidoo kale waxaa shabaqa soo taabtay xalay Anthony Griezmann oo rigooro loo dhigay. sidoo kale waxaa shabaqa soo taabtay daafaca kooxda Barcelona Araujo. goolka shanaad ee Barcelona ay dhalisay waxaa ongol iska dhaliyay mid ka mid ah daafaca kooxda Katafe. guud ahaan ciyaarta xalay wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo Katafe ayaa ku soo dhamaatay 5 gool iyo 2 ee ku badisay kooxda Barcelona. kooxda Catalonia ayaa 3 dhawaad ka qaadatay kooxda Katafe. Barcelona ayaa ku jirto kaalin saddexaad ee kala sareynta horyaalka La Liga dalka Spain, 68 dhibcood ayay leedahay. kooxda Barcelona ayaa kulanka xiga horyaalka La Liga waxay la ciyaari doontaa maalinta Axadda kooxda Villarreal.